السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكي المهدي ميعاد وإذن كل سند وعن وناكسن سند جديد كإلهي خير كده هورتها نصيو شركة إلهي أننا بدقليو بدكو مركا إليهين سند وناكسن هورتو وانا حساب الساعة سند دي هوري محاكو قرصومي أم محانكو قرصومي sanad kastana waa inaad had iyo jeer aad yeelataa mashruuc si waayo sanad kasta oo ku imanaysa waxay ka dhigan tahay cimrigaagii uu ziyaaday waxay ka dhigan tahay qabrigii waad u dhawaatay marka adduunyo iyo aakhiraba waxa wanaagsan inaad xisaabisid inta aanan xisaabta weyn la tegin waa inaad adigu xisaabisid haddaba inta ugu badan dadku waxay iska xisaabiyaan waxa dhici kartana meelkeed iska xisaabsi laakiin waxa wanaagsan inaad iska xisaabisid halka diinta diin maxaa ku ziyaaday iimaan maxaa ku ziyaaday halka lacag iyo financement iyo maaliyadahan maxaa ku ziyaaday xagga caafimaadka maxaa ku ziyaaday maxaa ku qarsoomay maxaa ku qorshaysan dhaqaale ahaan asxaabnimo ahaan mujtamac ahaan waxaasoo dhan maanta anigu waxaan rabaa inaan ku idhaahdo sanada soo socota waxay noqon doontaa sanad totally ka duwan sanadihii hore waxayna u noqon doontaa ayaan ku macnayn inagu horta afrikaan haddaan nahay soomaali haddaan nahay dadka af soomaaliga ku hadla haddaan nahay meesha duntibad joogo ama dadka af soomaaliga fahmaya had iyo jeer adduunka inaa waxa la moodaa laga yar dambeeyo laakiin maanta waxa socda waxa weeyaan waa wax hadhow toole aad is oran doontid allah maxaan saa u sameyn waayey allah marya qaarkood waxaan ka hadlaya waxa weeyaan waa xag ganacsi aniga ahaan waxa ii muhiima waxa weeyaan sanada jadiidka ah wixii fursad ganacsi laga qabsan lahaa cid kastoo maanta afkayga fahmaysa bal waxaan isku dayaa inaan meel wax kaa tuso ayna dadku badan wax ka arkin waxa soo baxay waxa la yiraahdo NFT ama metaverse oo facebookii ay horta marka ugu horeysa facebook baa tir anaa sameynay laakiin shirkado fara badan oo Microsoft Apple Amazon ay ku raaceen waan ku macnayn doonaa taa laakiin markaad rabtid had iyo jeer sanad jadiid maruu ku yimaado waxa wanaagsan inaad istiraahdid waxaabaan qabsan taana waxa la magaceeda waa hadaf ama waa goal la gaarayo oo isleedahay waxaabaan sameyn doona si ay kuugu dhibiraatana bal waxaan isku daya anna inaan ku dhibirayo sanada 2022 ilaahay cimri dhar iyo caafimaad qab hana u gaarsiiyay ayaan isku dayay inaan ku yara macneeyo ama ku yara simplify kaaga dhigo si aad bal hadhow toola ay kuugu dhibiraato marka aad doonaysid wax inaad qabsatid had iyo jeer lagama dhigo wax weyn af ingiriisi baan baran doonaa waa wax weyn programming baan baran doonaa waa wax weyn mashruuc baan furan doonaa waa wax weyn waxa weyn ma wanaagsanee waxa laga dhigaa specific waa la sii cayimaa markaad sii cayimtid ee tiraahdo waxaan rabaa luqadda ingiriisiga inaan barto grammarka maya conversationka maya qoraalka waxdhe mar horena waan ka soo hadlataa taa marka aad samaysid ayaa haddana waxa lagu xigsiiyaa timing baa loo yeelaa waqti baa loo yeelaa inaad tiraahdo luqadda ingiriisiga waan baran ama quraanka waan xafidi ama ganacsi waan furani kooriyaata kuguma filna kumana anfacaso ee waxa wanaagsan inaad tiraahdid luqadda ingiriisiga waa inaan bartaa oon bilaabaa bisha 1 bisha 2 iyo bisha 3 waa inaan grammarka bartaa bisha 4 ta 5 ta 6 waa inaan writingka bartaa waxyaabo caynkaas programmingka imanka dhalinyarta igu xidhan ee development iyo programming had iyo jeer waa inaad adiguna saas le ka bilaabo tirada HTML iyo CSS ayaan bisha January oo kaliya aan dhamayn markaad waqti aad u yeeshid way ku dhiranaysaa ta kale saddexaad waxa weeyaan waa inuu noqdo waxan idil ee aad sameynaysid waa inuu noqdo wax la sameyn karayo yacni ma kayna tiraahdo ma aha af ingiriisiga CNN intaan saa u hor fadhiisto waa inaan wala fahmaa 100% sanadka 12 suuragal ma ahabtiyo waayo waxyaaminta aad af ingiriisi intaad baranaysid iyo inta aad qofka Mareykanka fahmaysid it's totally different way kala duwan tahay programming marka aad sameynaysid
iyo expert on programming markaad noqonaysid way kala duwanta. marka waxaan aad samaynaysid waa inuu noqdo wax aad samayn kartid. quraanka ayaan 2022 ayaan xafiditaan macal tajwiidkiisa ku dari way adkaanaysaa, suuragal ma aha. marka waa inaad tirahdid waxaan xafidi doonaa inta mid Allah ka abaal mariya mid dhalinyaro oo bari aan weydiyo waxbay jiray quraanka 3 sano ku xafiday, yani 30 leejiska ba 3 sano ku xafiday. cidii Ilaahay u dhibaraysa way dhibartay 3 sano ma badno, laakiin haddana faa'iidaad keelisiya ka badan. marka had iyo jeer waxa u baahan tahay waqti iyo waxana inuu noqdo wax la qaban kartid oo la realize karayo, la samayn karayo. marka aad samaysid ayaa waxa suuragal ah Ilaahay ku dhibiray dhamaantiin baa noo dhibiray inay marka ay noqoto inaan goolashii 2022 inay noo suuragalaan. waxyaabooyinka maanta Soomaaliga ay fahmaysaa wixii maanta investment doonaya inuu investment inuu sameeyo, ama cidii doonaysa inay mashaariic gasho. metaverse waa wadan kale, waa adduun kale weeyaan. maanta waxa lagu tala jiraa in adigoo gurigaaga iska jooga bari qaarkood haddii aad qof ku tirahdid anoo halkaas iska jooga ayaan qof Ingiriisiga jooga aan la hadli, bari qaarkood mustaxiil bih. laakiin waxa soo baxay telefoon wax la yiraahdo oo isagoo Ingiriisiga iska jooga iyo adoo Mareykanka jooga adoo halkan Djibouti iska jooga ama Soomaaliya jooga iyo la hadlays wayaabay noqotay. haddana mustaxiil bay ahayd inaad la yiraahdo qof Mareykanka jooga ama qof Shiinaha jooga iyo anoo halkan Djibouti jooga ayaa sawir muuqaal iyo maqal isku arki doona. bari qaarkood mustaxiil bay, laakiin imaka way jirtaa oo WhatsApp iyo Messenger wax doona noqdo. imaka ta kale ee soo socota waxa weeyaan dhagaa si fiican u taago waxa soo socda waxa weeyaan aniga iyo qofka halka jooga oo halkan wala fadhina. metaverse kan ay Facebook samaynayso iyo Amazon iyo shirkadaha waaweyn maanta ay samaynayso waxa weeyaan waa caalam kale ayaa lagu tali jiraa in la sameeyo. bal imika waxaad ka soo qaataa qof walaalkaaya oo jooga Washington, adiguna halkan Djibouti baad joogtaa. Facebook markaad ku hadlaysiin waa sawirkiisu ma arkaysaa, laakiin ka waran adigoo intaad sawir joogtid aad wax kaliyaata gacanta kula qabanaysiin ka waran oo leedahay waa kan uu isna gacanta u dhibiso saasina leeyahay oo israacaysiin oo shopping mall wala tagaysiin oo soo daadaawanaysid oo marka way raacaysiin intaas oo dhan. laakiin mask baashi indhaha ayaa ku xiran oo indhaha ku xidhisatiin, isaguna uu ku xiran yahay, adna waad ku xirantahay. ilmihiisi yaraa ugu dambeeyo oo dhalay ayaa taabanaysaa oo leedahay sidaa gacanta kuma taabanaysid, gacanta ma taabanaysid, laakiin san baa leedahay wuu weynaade san buu noqday maxay aynkaas aad leedahay. aqal baa doonaysaa inaad iibsatid, markaasuu ku imanaya oo ku leeyahay aqalka waan kula dhisi. markaasaad wala aanaysid yaa aqal ka waran, saaloon ka waran, fadhigan ka waran, fadhiga hadaa bedelna ka waran, markaasaad fadhiyood bedelaysid maxay aynka. nolosha lagu tiri jiray waa taa weeye, waa adoo gurigaaga iska dhex fadhiya oo intaan nadaarad intaan muraayinta saa u xilitid aad maanta oo leey aad waxaan ku leeyahay qofkii kale aad la joogta. haddaba maanta businesska maanta yaalla waxa weeyaan adiga ninka waalka markaad wala timaadaan shopping mall baa tegaysaa. mallka maanta dhisitaankeedii rag baa lacag ku bixi maya marka baad raacaysaan ama bas baad raacaysaan, waayo caalam kale ayaa lagu tala jiraa in la abuuro ama in la sameeyo. marka caalamka kale ee khayaaliga waa nooc min caalam khayaaliga. caalamka khayaaliga waxa laga rabaa inaad adigu lahaatid jagadii dhulkii inaad lahaatid. qaar baa imaka jagadii dhulkii iibsaday. waxa suuragal ah hadalkayga hadday maqlaan inay yiraahdaan suuragal ma aha, laakiin mustaqbalka waad arki doontaa. aniga maanta dad beenaysatid waad arki doontaa. dad baa imaka milyano ku bixiyay jagooyinkii guryaha. dad baa maanta baabuur sii iibsaday, baabuurada la wadanay. dad baa maanta sii iibsaday shopping mallkii macdaara ka sii iibsaday. shopping ka hadda la soo alaab kama soo gadanayso ama ma soo iibsanayso ma soo qaanayso, laakiin waa u daawasho tagaysaa. cunno laguma cunayo halkan baad joogtaa, cunitaan ma jiro. laakiin wax oo dhan waa wala dalxiis oo kale. Paris baad rabtaa inaad tagtid, Paris yaa rabtaa inaad tagtid, maana tagna weligaa. metaverse waad ku tagi karaysaa.
intaad qabatid yaad gashanaysaa waad raacaysaa waa halkaagii faransiiska joogay waad soo tegaysiin birtii baad arkaysaa waad fuulaysaa haddaad waxaa soo mir wadamadii imaka metaverse-gan way soo dhex galeen waxay soo dhex galeen waxa weeyaan turafel oo kale birta adduunka ugu dheer oo kale rag baa hadday doonaan iibsan markaas ayna u iibsan wadamo qaarkood way soo galeen oo hantidoodii ayay ilaashanayaanba NFT weeyaan waa hantidii dadku lahayd imika shirkadii Nike waxay bilowday inay hantideedii inay caalamka khayaaliga ay ku samayso kabo ayay samaysay Nike oo tagi kartood ka iibsan kartid ma xidhanaysid laakiin hanti ahaan baad u yeelanaysaa ka waran maanta marka aad viisaha doonanaysid markaad viisa doonaysid waxay ku oranayaan waa inaad haysatid hanti waa inaad lacag haysatid waa inaad bank haystid waxaa sameyn waxa laga qaadaa certification ma laga qaadaa Soomaa waxaan jeedaa banka u tii wax leedahay hantiinta leedahay waraaqad certify isiga leedahay baabuur maxay guri hadaa leedahay waraaqadaad geynaysa safaaradda markay visa ku siinaa safaaradda Ingiriisiga Mareykanka wax aan ka sameyn laakiin metaverse hadhow marka la galo username kaaga ayaa la gali karaa ka waran oo la arki karaa wixii hanti aad leedahay hantidana ma beenin kartid waa hanti la arkay oo leedahay maanta imakadaan ku hadayo qaar ayaa milyano haysta adduunkan khayaaliga marka qof wuxuu soo doonaa war anagu adduunkii caadiga aban ka oo yaqaatiya kunne maxaa adduunka khayaaliga maxaa oga sheegay videogan waxaan aan u duubayaa 10 sano maxay kadib ilaa cimriga haduu noo daay si aan dadka qaarkood aan war u ahay bariye qaarkood way jirin war aniga adiguba intii aan isku day karno aan ka faa'iideysano macdanta jirtay imaka maxay la galay wixii Soomaaliyeed videoga inta la wadaagi kartaan la wadaaga cid kasta oo hanti ku tuhmeysaan la wadaaga si hadhow toole waxaan kaga darkii mid kale jirta dawladaheena maanta af Soomaaliya ku hadlaya waa inay hantidooda iyaguna ay ilaashadaan hantidooda oo NFT-gan idil ee la sheegay waa hanti dadweyne ma hanti dawladeed ayaa hadhow toole qof samaysan karaya يعني إمك مانتا .com كإمك www.com أديكم ملي شركة أياس كله إمك بس قادم مكها nike.com أما adidas.com ما قادم كرتيد مقع ويب سايت كما قادم كرتيد يعني ده هو حي إلى عشان يعني ومقع إلى ويب سايت هدو طال هذا عالم كان خيالي جمرك على جلنا NFT وحيوين كل إبسنا وحنا وين هنتدا هذا أدوات إلى شتيت أنتي هنتدا هذا إبسن كرتينا وين هذه مك إبسته لكن محنه بعدك قاركود إن أي كل عجيسون دونان عدي إما كبلاعة بكرتها بلو حتى رقدت كديفلوبمنت هي اللوجيسيلا دي بروجرامينج كودنا وحويان يوتيوب كيمك وكوير يهاي سي سوفتوير ده الله ديفلوب كريه لكن وان كنت لجأ إلى عمرك هادو نودا يو إن إيضا أف صوماليا أن سمين دونو how to create a website with NFT how to create a software أو cryptocurrency وحياوين كاسمين كحل دونتا إن شاء الله أنا قلنا ددال كيكا وددالي أنت نودن هالنقطة هذا سكعام on 2022 عن كسر دوينينا مركا aad baad u mahadsantiin wixii su'aalo inaad qabtaan wada soo weydiin kartaan aniguna waan isku day aqoontayda gaaban inta aan leeyahay aan ka jawaabi karo hadii la yiraahdo aad baad mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh